Nabadda iyo naxariista Ilaahay baa korkiina ha ahaato dhammaantiin, kuna soo dhawaada Dalmar Official TV. Daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay channel-kan, fadlan subscribe dheh lana wadaag asxaabtaada. Joe Biden waa ninka tartanka adag la galay Donald Trump. Wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Obama 8 sano ee hoggaanka Maraykanka uu hayay. Waa musharax ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Maraykanka, kaasoo Donald Trump uga guuleystay doorashada. Wuxuu noqonayaa madaxweynaha 46aad ee Maraykanka. Sida ay sheegayaan taageerayaashiisa, wuxuu muddo 10 sano ah kasoo shaqeeyay siyaasadaha arrimaha dibadda. Waa nin aftahan oo soo jiidan kara dadka caadiga ah. Waxaa lagu tilmaamay nin geesi ah oo adkaystay dhibaatooyin soo maray noloshiisa, wuxuuna muddo 50 sano ku dhow ordayay siduu madaxweyne uga noqon lahaa Maraykanka. Biden kuma cusbo ololaha doorashada. Wuxuu halgankiisa siyaasadeed kasoo bilowday magaalada Washington, xilligaas oo ku biiray aqalka Senate sanadkii 1973 oo hadda laga joogo 47 sano, halka ololaha doorashada madaxtinimada uu bilaabay sanadkii 1987 oo haatan laga joogo ilaa 33 sano. Wuxuu nasiib u yeeshay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah, Barack Obama. Joe Biden wuxuu si weyn ula macaamilaa taageerayaashiisa, isagoona u muuqda qof ka dhaadhicinaya waxa uu doonayo.